السلام عليكم. معلم راكسن. أنا أفرح سنة هاي إن عن كسر قيب قالوا مناسبة قيمها بدن قلنا جبينتا دفاع الشناد دكسي أحمد وائل معلمين تا والدين تا مرتشرفت قيبها كلاتو وسلامة يا sidoo kale waxaan salaaniya hambaliyo iskugu daraya ardayda iyo macallimiinta iyo waalidiinta inta kadib kaliya waxaan rabnaa inaan wadaagno xogo muhiim ah aan aaminsanahay inay nafaheena qiimo badan ku soo dirayaan balse waxaan rabaa inaan ku soo xasuusiyo haddii aad tahay arday form 4 ah sanadka bilowgiisa aniga iyo saaxiibo kale waxaan kugu nimid iskuulkaaga ama xaruntaada si aan kula wadaagno xog ku saabsan horumarinta naftaada aniga aan ugu hore waxaan kala hadlayaa isbedelka ustaad wehliye iyo saatiida kale waxay kala hadlayeen waqtiga akhriska iyo wax la midka intaas ujeedkan waxa uu ahaa in la helo arday u diyaarsan inay ka guuleystaan riyadooda ah galaaskan maadaama uu yahay galaaska ugu dambeeyay dhibkiisa culeyskiisa iyo caqabadiisu ay badan yihiin ayna tahay in la helo kaliya shidaal lagu dhaqaaqo lagu gaaro halka loo baahan yahay waan rajaynayaa inaad wada xasuusteen dhamaantiin balse waxaan rabaa hal mid aan aaminsanahay inaan kuu sheego ayna muhiim tahay inaad ilo ogaato adiga midaas waxay tahay in dhamaanteen inuu keedsan yihiin qalab haddii aad aaminsan tahay in guryaha iyo gawaarida iyo wax mashiinada la taaban karo kaliya ay qalab yihiin hadda waxaad ogaataa noloshaada dhexdeeda waxa ku jira qalab balse qalabkaas ayaa waxa uu u baahan yahay in uu helo shidaal lagu dhaqaajiyo haddii aad adigu dhaqaaqday nolosha macno sax ah iyo guulo sax ah iyo ujeedooyin sax ah gaartay waxaa lagama maarmaan ah in aad ogaato noloshaada si ay u dhaqaaqdo darteed qof ay noloshiisa u istaagtay dhaqaalaha iskuulka aad ku dhigato waxa bixiya aaba noloshiisa isagoo horumarin karo wuxuu noloshiisa dhan u joojiyay si aad adigu guul u gaarto noloshii hooyo sida nolosheeda guul u gaarto wuxuu u joojisay si aad adigu maanta u noqoto arday qalin jibiya si aad maanta adigu u noqoto beri qof soo qalin jibiya marka intaas waxa la ognahay in noloshu qalab aan haysano qalabkaasna ay tahay in shidaal lagu shubo shidaalka lagu shubaayay inay ugu horeeyaan hooyooyin iyo aabayaal haddii laakiin aragti xun iyo fariin xun iyo wax xun aan kula dhaqanno waxaad ogaataa shidaalkaas wuxuu ku lumayaa meel leebara mid aan kugu daro marka intaa waxaa muhiim ah inaan isla ogaano 4 shay oo naftaada saameynayo ustaad nuur aadan ugu mahad celinaya wuxuu kala hadlay in isbedelka laga maarmaan uu yahay wuxuu kala hadlay in wax walba ay tahay aragtida aad adigu nafsadaada ka dhaadhiciso in wax walba ay tahay in aad sameyn karto awoodi karto aad qaban karto waan inta waan aaminsanahay garashadiina maskaxdiina inay ka daadagtay balse mid aan kuu sheego waxaa jirto hal qayb oo aan aaminsanahay haddii aad hagaajiso dhisto kobciso dhiirigeliso in noloshaada guul macna leh aad ka keeni doonto waa inta oo kaliya inta sare waa dhigaha aragga afka iyo maskaxda inta gelayso oo sidee 4 shay ayaa jira oo nafsadaada saameynaya 4 shay waxay yihiin number 1 ma u baahan inaad ogaataan 4 shay okay number 1 waxay tahay waxa aad maqasho haddii maalin walba dhigahaaga ay ku soo dhacaan ereyo xun oo ay ka mid yihiin wax ma qaban kartid wax ma tari kartid damiin ayaa tahay doqon ayaa tahay dabaal ayaa tahay ereyadaas oo idil waxay u sii gudbayaan maskaxdaada qaybta ugu horeysa oo ah conscience oo subconscious uma gudbi doonaan conscious haddii u gudbaan conscious haddii aad ku soo hayso ereyadaas aad ku celceliso nafsadaada aad u sheegto subax walba waxay u gudbayaan qaybta dambe ee maskaxda mana iska dhaqi kartid adigoo idin noloshaada wuxuu ku soo koomi doontaa inaad fadhiisato inaad noqoto qof nolosha aan wax ka qabsan karin inaad noqoto qof nolosha aan wax ku soo diri karin inaad noqoto qof nolosha dhankan iyo jaba laga yaabo inaad hadeerta ama garashadaada ay ku jirto balse waxaan kuu sheegayaa in la dhaqi karo la nadiifin karo number 1 marka waxa naftaada saameeyo waxay tahay waxa aad maqasho number 2 waa waxa aad aragto haddii saaxiibada kugu hareereysan dadka deegaanka kula jooga muuqaalada mobilka kugu jira waxa YouTube-ka aad ka daawato social media waxa aad ka aragto yihiin wax xun oo kaliya indhahaagu waxay fariintii aad ka aragto waxay u gudbinaysaa maskaxdaada subconscious-ka ay sii tagaysaa ugu dambeynna waad ka qusanaysaa meel yar aan ka tuso wax ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri indhihiina ka laabta dumarka Soomaaliya xumaanta dabcan dumarka uu leeyahay kama wado dumarka indhihiina ka xirta laakiin meelaha qaar soma si aysan xumaan u noqonin garashadana aysan u gudbin waa xigmad quraanka noogu jirto quraanka noogu filan sidoo kale to aayad waxa ku jirta dhagihiina ka xira xumaanta heesaha waxa la midka dhagihiina ka xira waa lagu asla ogaanay aragga iyo maqalka mid saddexaad waxay tahay waxa aad adigu isu sheegto nafsadaada ogow waxa jiro ereyo ka saameyn badan ereyada aad caadigu dhaxdo
erey walba oo nafsadaada kasoo baxa waxa uu saameeyo qof qalbigiisa haddii aad adigu kaftan u dhahday erey iska caadi ah qofka kale waxa uu ku abuurayaa si dhiba ama si saameyn leh waxaad ogaataa qofkaas kalsoonida uu ku hayay iyo jacaylka uu ku hayay iyo ixtiraamka uu ku hayay way baabi'i doontaa sababtoo ah ereyga aad dhahday saameyn ayuu ku yeeshay kasoo gudub dadka kale nafsadaada u imaa waxaan rabnaa nafsadeen inaad dhisno marka aad ereyadaas aad naftaada kula hadlayso aad hagaajiso waxaad fudud in nolosha micno sax ah ka yeelato kaliya wax kale ha samaynin subax walba marka aad soo toosto 20 daqiiqo ugu horeysa subaxdaada nafsadaada waxay ayadaa u baahan ay tahay in ay qaadato cibaadayso quraanka akhriso warqad iyo qalin qaado ama codkaaga isticmaal awoodda codkaaga waxaad u sheegtaa nafsadaada in aysan jirin cid kale oo ka qiimo badan inay tahay qofka ugu mudan in la jeclaado inay tahay qofka ugu mudan in la dhageysto inay tahay qofka ugu mudan in la ixtiraamo la qadariyo la sharfo sababtoo dhamaantan waxa u baahanaa in la sharfo la ixtiraamo la jeclaado soo sama marka waa inaad aroor walba nafsadaada u sheegtaa in wanaagas uu jiro laakiin haddii naftaada u sheegto wax ma qaban kartid wax ma tari kartid isbedel ma keeni kartid guul ma gaari kartid nolosha waxa kaaga wanaagsan hebel waxa ka qiimo badan hebel ustaadku waxa uu qiimeeyaa hebel galaaska aad dhigato 4 qof ayaa haysata sanadka bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa waayo u haystaan waxay tahay waxa ay qabtaan wax aysan qabanin inta kale mila socota $100 haddii la karo galaaska waxaa loo dhiibay 4 qof waxa la $100 u qeybiya ardayda si sameeya haddii daabur loo baad waxa loo dhiibay 4 qof waxa la 4tiina maamula haddii la dhaho xaflada jirta 4taana loo keenay waxa la 4tooda maamula waay 4tooda waxay qabteen wax aysan dadka kala qaban mila socota marka waa inaad nafsadaada u diyaarisaa inay qaban karto wax walba guusha u baahanta inay caqabado ka xigaan halganka aad u baahanta inay xanuuno badan ka xigaan balse ay tahay in aad nafsadaada u diyaariso saddex asla soogaan waa waxa aad maqasho waxa aad aragto iyo waxa aad adigu soo sheegto midda ugu dambayso muhiimka waxay tahay waa waxa aad sameeyso haddii wax walba soo toosto waxa aad sameynayso yihiin wax xun dabcan wixii aad sameeyso waxay u gudbiyaan maskaxdaada afartooda markii aad sameeyso dhamaantood waxay u gudbiyaan maskaxda haddii aad ku celceliso waxay u soo gudbiyaan qaybta dambe ee maskaxda noloshaadana waxay doqon doontaa nolosh liidnaan nolol daciifnimo nolol zero ah marka afartooda waxa ku hagaajin kartaa waxaan aaminsanahay aan ogahay inaad u baahan tahay inaad noqoto qof wanaagsan oo qiimo leh oo la qadariyo ereyadiisii wuxuu sheegayo sida aan u aaminsanahay si lamid adiga ayaa u aaminsan sida aan u qirsanahay si lamid adiga ayaa u qirsan waxaasoo kale ogahay inaadan u baahnayn inaad dunida ka tagto adigoo xun balse mid ogow noloshu hal xeer ayaa jiro aan aaminsanahay haddii xeerkaas aad dabaqdo in noloshaada guul macno leh ka keenayso haddaadan dabaqin xeerkaas nolosha iskaga fadhiiso macno kuma soo kordhinayso kaliya waa xeerka la yiraahdo just do it imisriya maskaxdaada ku jirta tira ma laha imis afkaar ayaa maskaxdaada ku haysta aad leedahay hal maalin oo kaliya ayaa rumayn kartaa tira ma laha imis sana ayaad galaas fadhida aad leedahay buug goormaad qortaa goormaad towbaro noqotaa goormaad sidaa noqotaa balse mid ogow haddii intaas maskaxdaada goorma aad ku hayso waxaad dhiman doontaa iyadoo intaas afkaar ay ku dul joogaan familkaagu way ilmeyn doonaan ugu dambeyn dunidana magac kuuma ooli doono sharaf iyo wax dadka ay kaaga dambeeya ay muudsadaan ama ay dhadhansadaan kuuma ooli doona laakiin marka aad hagaajiso afarta waxa aad arkayso waxa aad maqlayso waxa aad isu sheegtay waxa aad sameynayso aad ku biiriso inaad hadda qabato noloshu waxa kaaga soo baxaya miro macaan oo aysan dad kala guran karin waxaad noqonaysaa dadka guuleysto oo noloshaada si lagu arko lagu dhageysto lagu ixtiraamo lagu qadariyo lagu la fadhiisto waxa lagu soo bixin doonaa lacag waqtigaaga maareyso noloshaada hagaaji adigay ku jirtaa marka go'aan laba ah aan kala dooranaya laba go'aan marka in aan nolosheena wax xun ka soo dhaqaajino wax aan arkayno wax aan maqlayno wax aan dhageysanayno wax aan sameynayno ee noqdaan wax xun oo aan wax xun kaliya sameeyno ama inaan u soo dhaqaaqno dhanka kale oo ah inaan sameeyno wax wanaagsan inaan aragno wax wanaagsan inaan maqalno wax wanaagsan inaan isu sheegno wax wanaagsan marka number 1 iyo number 2 kala dooran doonaa 2 waxa noo ah kan wanaagsan wankan waxa noo ah malawala cadis fila wanka waxa noo ah okay waxa raba mar qura inaa ogaado xaqiiqda dhabtaana fiina ka balan qaadaysaan erey walba hadda sheegayso waxa naftaada ka balan qaadaysa waxaad anigu ugu qancinayso mahaya misal saana haddii aad u baahan tahay kan number 1 waa inaad dhahdaa number 1 u baahana waa inuu sahuulkan isla yeeraya number 2 hadda u baahan tahay waa inaad dhahdaa
number 2 ayaa u baahanahay 1 2 3 aan tirinayaa midka u baahantiina marka rabaa inaan ogaado okay diyaar ma tihiin diyaar ma leeyahay diyaar ma leeyahay diyaar ma leeyahay okay 1 midka u baahantiina rabaa 1 2 3 1 2 3 okay nolosha micnaheeda dhabta halkaas ayay ku jirtaa nabaadiin ayaa idin rajeynaya dhamaantiin waa idin jecelahay guusha ayaa noo madala